ii صح keenaa ama nin oo maanta aan sharaf lahayn aniguba uma baahni runtaa idiin sheegayaa laakiin muhiimaddaa waxay tahay ninkayga sharaftiisa waa sharafteeda waana gurigayga inaad difaacdo maalaa xaqaaga dhacsa ah waa idiin sheega warkay waa cad yahay soo naagtii halkaas صح kusoo qorayso toosh ku haysana haddaa idiin sheegaa mid kalaa rabaa inaan idiin sii sheego haddii aad u baahan tahay raagi inuu ku uureeyo gurigayga imaanaya shaqaalaad ka noqonay markaad shaqaysid hawsha aad dhibaysid dhib mala sariirta waa kuu diyaarinaa xaggaa sabta lagaaga hagaajinaa markaasaa dhaldhale kuu boqdan oo asaga si saxa ugu eg xaqiiqdaa taas ah qaaliladan afka ayay furatay waxay difaacday odaygeeda raage cabdi waxay u jawaabtay gabadhii kasoo hadashay in raage cabdi uur uu u yeelay weliba uu ka sinaystay canugun ay u dhashay DNA-na ay u baahan tahay in lagu baaro arrintaasi sheekadan waxay qabsatay baraha bulshada dad badan ayaa dhalanteed u maleynayay laakiin sheekada meeshii ugu xumeyd ayay gaartay qaaliladanna hal go-aan ayay soo saartay si cunugaas loo ogaado inuu dhalay odaygeeda raage cabdi iyo inuusan dhalin muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa dabcan waa meeshii la dhahayay adkaatay intaan naqaanay way dhaaftay dabcan waxaan eegi doonaa qaali hadalkeeda iyo gabadha hadalkeeda iyo raago oo aamusan wax la filan karo iyo dadka caqliga u saaxiibka ah markay sheekadan dhageystaan go-aanka ay qaadan karaan gabadh lagu magacaabo queen fartuun ayaa waxay kasoo hadashay baraha bulshada gaar ahaan tiktok gabadhan waxay tiri ninka qaaliladan qaba ee raage cabdi ah ee soomaalidu ay wada taqaano baraha bulshada caanka ka ah qaaliladan ay u dhashay gabar ayaa aniga wiil aan u hayaa wiilkii sawirkiisa ayaa dabcan lasoo bandhigay wiilka sawirkiisana waxaa dadka qaar ay yiraahdeen gabadhan ay tiri waa kan uu u eg yahay aabihii habeen ayaan is aragnay habeenkii ayaan kulannay oo kulana dhex maray kadibna uurkii ayaan isku arkay wuuna igu inkiray odayga qaaliladan ee raage cabdi waxaan doonayaa in ummadda soomaaliyeed arrintan ay ogaadaan baaritaanna lagu sameeyo dabcan gabadhan sidaan arkayo soomaaliya ayay joogtaa arrintan waxaa ka hadlay dad badan oo hodan online qayb ay ka tahay oo dad badan oo gabdho iyo wiilal leh oo baraha bulshada caanka ah ayaa ka hadlay dabcan markii halkaas ay taagan tahay qaaliladan ayaa live soo gashay oo ka hadashay arrintan odaygeeda lagu haysto ma saxbaa ma qaladbaa ma wax macquulbaa ma wax aan macquul ahaynbaa raaga ma laga filan karaa arrintan maxaa qaldan dabcan way sharaxaad dheeraaday ka bixisay qaaliladan waxay difaacday marka hore odaygeeda waxay tiri weligay maanan arkin gabar canug wacal ah dhashay siday hadalka u dhigayso ee leh zina ayaa cunugan ku dhalay aabihiis halayla raadiyo walba haddii ay dhihi lahayd canugan aabihiisa waan isqabnay cunugana wuu igu inkiray waxbay ahaan lahayd qaaliladan waxay tiri ninkayga malaa'ig waa ma dhihi karo laakiin ilaa xad intaan ogsoonahay waa nin aada u wanaagsan oo aan isjecelnahay oo wanaag naga dhexeeyo qaaliladan waxay kale ku doodeysaa gabadhan DNA inay aado soomaaliya ay ka timaado nairobi ay timaado iyada lacagta ay bixin doonto DNA-da dabcan koonfur africa lagu baaraa kenya marka lagugu baaro waa la qaadayaa mudday qaadanaysaa in DNA-gaas si saxa loo soo ogaado marka waxay leedahay qaaliladan aniga diyaar u ah inaan lacagta bixiyo laakiin waxaan u baahanahay in gabadhaas iyada iyo canuguba ay iskeenaan magaalada nairobi laakiin macquul maaha inaan aniga lacagta soo diro oo aan dhaho nairobi imaada dadka marka caqliga saaxiibku ah waxay leeyihiin qaaliladan ma xuma waa naag ninkeeda difaacanaysa gabadha kalena alla og sida ay u hadlaysa hadday sax tahay iyo haddii kale laakiin waxa meesha yaal waxay tahay raage cabdi isaga muu soo hadlo oo arrintan uu iska tiro ama isku tiro raage cabdi ilaa haatan lama hayo warkiisa uu arrintan uga hadlayo uu ku xaqiijinayo waxa jira uu si cad u sheegayo in gabadhaasi asaga aysan isgaranayn waxyaabaha kale shakiga keenaya waxaa ka mid ah in qaaliladan ay si toosa u sheegtay in ninkeeda ah ee raage cabdi iyo gabadhan ay habeen hotel isku arkeen daqiiqada ay isla joogeen kadibna ay kala tageen meeshaas waxbaa ka soo baxay maxaa yeelay haddiiba ay isgaranayaan gabadhan fartuuna iyo raage cabdi ama daqiiqad ha wada joogaan ama 5 daqiiq ha wada joogaan ama saacad ha wada joogaan arrintaas baaritaan inay u baahan tahay ayaa dadka caqliga leh ay ku fakarayaan dabcan
way is yaqaanaan markaad dhehayso waxbaa meesha kasoo laabanaya. isma yaqaanaan, weligood ismaynan arkin. gabadhan been baa laga sheegayaa. dabcan haddii la dhihi lahaa xataa waxbay aanay. waxaa jirta baraha bulshada marka lagu jiro dad badan oo gabdho u badan oo sidaan sameeya. tusaale ahaan waxaa ugu dambeeyaan u maleynayaa sheekh Rusheeye Yare oo gabar dhagaxley joogta ay tiri uur baan u leeyahay, wuu ii uureeyey, uurku igu inkiray, buuqii wuu batay. markii dambena gabadhii way soo hadashay, waxay tiri sheekhu iga raali noqo, dad baa lacag igu siiya. sheekhi ilaa heer uu gaaray uu habaaro. dabcan beentuna way raad gaaban tahay. haddaba qaaliladan iyo odaygeeda sida ay u difaacday bal aynu isla aragno. ii keenaa ama nin oo maanta aan sharaf lahayn aniguba uma baahni runta idiin sheegaya. laakiin muhiimadda waxay tahay ninkayga sharaftiisa waa sharafteeda, waana gurigayga inaad difaacdo. maalin xaqaaqa dhacsa ah waa idiin sheega, warkay waa cad yahay. soo naagtii halkaas kusoo qorayso toosh ku haysana haddaa idiin sheegaa mid kala rabaa inaan idiin sii sheego. haddii aad u baahan tahay raagi inuu ku uureeyo gurigayga imaanaya shaqaalaad ka noqonay. markaad shaqaysid hawsha aad dhibaysid dhib mala, sariirta waa kuu diyaarinaa. xaggaa sabta lagaaga hagaajinaa, markaasaa dhaldhale kuu boqdan oo asaga si saxa ugu eg. xaqiiqdaa taas ah. inta kalema waa buuqin igala kortaga. cunuga wou ogyahay ee wadaana maba u ekaba balaaya dhegeyso horta ma rabo cunuga saqiirka, cunug yar waaye, sibi waaye, wallahi aadaa uga xumahay. xitaa hadday dhahdo gabadhaas ee dhihi lad maanta soomaalinimaha liigu gargaaro waa lagu caawi lahaa. laakiin midda meesha jirtaa waxay tahay qof wuxuusan ahayn haddaad ku tilmaamtid. horta afkaaga waqooyiyaa la wada hadlaa, fahmaysaan? gabadhaas haddii ay maxaan kuraa ay rabta caawinaad si yar oo private ah iyo dadka xataa public hadii caawinad intee lagu arkay naagdaas waa sinaystay maxaan ku dhahdaay ninkaasaan iga sinaystay war xataa waa iqabay xataa beentaadii hore aan ii sheegtaba u sheeg dadka at least qof is ceebayna anigu nolosha adigu hadda raagi inaad ceebaysa isku malaysaa sistra adaa is ceebiyey number 1 adaa is ceebiyey cunugaaga yarka mustaqbalkiisana waa ceebays. cunug wacala horaa loo dheli jiray 100 wacaliina joogan oo sharaf loo maanta la koriyay oo hooyooyinka ay korsadeen. laakiin dhibaatada waxay tahay mid kale adigu ma aragtay naagta ma dhibaa ka muuqatay waa fiirsateen oo maleynaa dhib ma ka muuqdaa naagta asoo isku qaqaawinayso. waxa arki jiray qof dambi intuu galo ilaahay ka toobad keeno is asturo ilaahu cafi ilaahay. horta adinku ma idila ekeed naagtaas naag dhowran ma idila ekeed su'aasha taas waaye naag dhowran ma idila ekeed adi naag oo fiiri cunug dhan oo xaaraani hadii ay sheegayso runta cunug dhan oo xaaraan haysato ma is asturka soo yaadi cunug dhan adduunka u joogo oo xaaraani. laakiin raagi wiilka isku qabiil maaha. wiilku wuxuu yiri bismillah gabadhaas wuxuu yiri meesha hoose ibaatay hotelkeenana lama ogolo raagina anigu maanta aqoon uma lihi gabadhaasna waa gol oo maxaan ku raadaay oo meeshan aan noogu imaato hoos ugu imaatay daqiiqada xitaa islama isa joogo meesha si kala tageen. marka ayadana waxay ku candacooynaysay hotelka laftirkiisa isla seexanay. waxa kale oo idinka ilaaway gabadhan intuu soo aysan xamdi bilan u tagin waxay raadi jirtay qof caan ah oo social media ay raago intay u adeegsato ee soo geliso ee tiraado arrinkaas iyo arrinkaas ugu sameeyay. waxay wacday UBSAD waxay kale wacday wiilal badan oo fanaaniin ah wacday before intay xamdi bilan u tagin. xamdi bilan markay gabadha ogaatay iyadoo uur leh ka tagtay oo niman iyo adduunyadeedu wadatay ka tagtay. ma fahanteen? so meesha muhiimadda taala waxay tahay gabar qalad wuu dhici karaa horaa loo sinaysan jiro dad waa soo sinaysteen dambi wuu dhacaa. ani gabaraan haystaa ma rabo inaan qof ku dukado anaa gabar ah. laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay gabadhan maxay social media u raadinaysay ilaa waagaas ilaa haddeertaan maxay u raadinaysay? waraahoy wax ma idiin sheegaa haddaa way xubsi midda kale DNA markaa leedihiin DNA qofka markaad ka qaadaysa ama u ogashahay waa markii qofku uu aaminsan yahay inuu cunugan dhalay raago maxaan ku raay gabadhan raasiyaa ilaahay noo daayay cunug kaaga horeeyay ku dhaaro kitaab ku mar ayaan dhihi karaa right now. ani raagi ismaani guursan dhageysta laakiin naagtaasu intay soo gasho live kitaab ha ku marto intay soo weysato wallahi xataa xamdi bilan horta iigu sheer gareey xamdi bilan please xamdi bilan la iigu sheer gareey. waxaan ku iri naagta hadday dukataa ku iri hal dhaari ma fahanteen?
so wiilkan filterka inta lagu soo cadeeyey oo banaanka lasoo dhigay oo la yidhi raaga uu egyahay sister ay salmaaqan haddad kuwa lacado xitaa ha kuugu ekaado raaga gabadhiisa waa taasaa hala dhaariyo fiiri hala dhaariyo maan maahane meel cadaa lagu dhaariyaa iyada kaligeed iskama dhaareyso ani mida waxay kaloo tiri idinka nairobi dhegeysta sug nairobi yaa rabaa hay tiri DNA nairobi yaa laga qaadaa nairobi yaa rabaa anugu marka intaa lacag ka baxsho nairobi aan keenaa anugu DNA aan ka baaraa interesti iigu jiro horta muxuu yahay waa nothing iyadoo ha iskeento nairobi DNA laguma qaado ee South Africa la geeyaa DNA intaa lagaaga qaado culigaaga nairobi la imaw laakiin ballan waxa ay han ku uri hadii ay maxaan ku raadaan inta keento DNA inta qaado raagada ka qaado in cadeynteeda halkaas la soo dhigo laakiin may awoodade been weeraad gaaban tahay waa sheekada aruush waa sheekada hadda aruush oo socoto leewa marka step to step waa la soo hoobanaya maalin qof waay marka walaashay waxaan leeyahay horta waan salaamay reer TikTok assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midxigta waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadhan u dhaw qaaladan Valentin arinkay ka hadlayso ila dhigeyso atee inta nairobi imaatid waxaan ku ori halkaan DNA ana lacagta dhiiba DNA ga lagaaga qaadaay taraagan ana kaaga qaadaay waxa loo diraa South Africa loo diraa DNA ga oo Kenya lagu qaado haddii se lagugu waayo si maxaa okay waxay dhahdeen haddii lacag DNA ga aan lacagtiisa xitaa dhiibo Nairobi na imaad sharcigaasna lagu kala baxo hadduu wiilkaas DNA ga yeelan waayo yaa maxaa ku wajiya ilmaha ka reebana xabsina ku ureysan vent laakiin hadduu lacag qaaladan uu ku soo baxo waxaan aanu la shirtagaa waxa ogaa vent saaxib ismana ceebeenahay vent waxa ogahayna haddii bari soo baxaan DNA sharcigaas ku kala baxno wajiga ku yaal aad meeshay kartaa